بسم الله qaybtan kale waxaan sameynaa markaasi update ayaa meeshan ku sameyneynaa mar walba waxaa xasuusnaataa marka laba shay markii la sameynayo create markii la sameynayo iyo get markii la sameynayo labadaba uma baahna markaasi in aad id sheegtid ama historyga inaad sheegtid marka uma baahnid kaliya create aad leedahay create ayuu noqonaa get wuxuu noqonaa marka dhammaan soo hel okay maadaama haddeertaan uu ka duwan yahay kan mar walbo anaga aan rabno inaan wax tirno waxaan u baahanahay id inaan helno saa u helno historygaas id-geeda inaan helno kadibna aan tirtirno ama haddii update gareyna waa inaan helnaa markaasi id-ga update garey lahayn waa inaan helnaa marka si aan u helno waxaan tagaynaa qaybtan historieska waxaan ku sameynaa markaasi id balse qaab waxaan u sameynaa markaasi dynamic waxaan u sameynaysaa qaabkaasi oo bracketska ee laba dhinac ka marinaysaa kadib id dhexda gelinaysaa js inta ayaa sameynaysaa okay inta waa sida hadaateen dabcan waxaa leenahay markaasi import nc kadibna from waxaa leenahay markaasi next connect ayaa markaasi kusoo import galinaa mid labaad u baahanay waxay tahay import db ayaan u baahanay waxaan kasoo qaadanaa markaasi utilska kadibna db aan leenahay mid saddexaad u baahanay waxay tahay markaasi historieska saa hore usoo sheegay waxa koodka ku dhamaystiraya ama ku tusinayo waa copilotka oo AI isticmaalaya marka waa ka haddii aad rabtid inaad isticmaashid waxaad tagaysaa qaybta extensionka inta waxaa ku qoraysaa markaasi github copilot ku qor kadib install garee insha allah okay intaa markaa sameeyo xataa haddii meeshan dabcan saa i xasuusiyo waan ka ilmaami rabay intaasaa qoraysa waxaa le markaasi handlerka ayaa meeshan ku sheegaysaa okay haddii meeshan hadda aad dhaho update comment u bixina waxaa leeyahay update bis aan ku qoray ama update history dhahay aan isla fiirin ka hadda box bena wax walba tab u kaliya taabana aniga okay taaban dhahay enter waxayna sugaa seconds taaban leh muxuu sameeyay wuxuu ii sameeyay update oo dhammaystiran ayuu ii sameeyay dabcan sa aragtaaba wuxuu ii sameeyay update dhammaystiran ayuu ii sameeyay si markaasi oo saan hor usoo sheegay si u heshid qaab noocan ama lah waxaa u baahan tahay copilotkaasi wax badan ayuu kaa caawinaya insha allah marka iska tiraynaa dartaan marka anaga caadi ayaan u samaysanayna markaasi okay waxaa leenahay markaasi handler kadibna waxaa leenahay markaasi boot waxaa leenahay kadibna isna ayaan sheegaynaa kadibna meesha waxaan ku sheegaynaa laba shay request iyo waxaan sheegaynaa markaasi responsive okay waxaa leenahay marka hore await ayaan leenahay db-ga marka hore aan magacaabayna db-ga ayaan wacaynaa ugu horeyn midda xigta waxaa leenahay markaasi mar walba oo la sameynayo update la sameynayo waxaan u baahnaan id san u helna waxaan u qoraynaa qaabkaas ayaan u qoraynaa waxaa leenahay markaasi id aan meeshaan ku sheegaynaa id-gan xagee ka keena markaasi id-gan waxaa ka keenaya ama ka akrinaya waa id-gan kan ayaan akrinaya markaasi okay aan iga qaldan yahay id-ga markaasi kan okay waxaa leenahay id kadib waxaa leenahay markaasi request okay dot param okay params ayaan leenahay waxaa kale u baahanaya markaasi inaan helno titleka iyo contentiga marka leed inaan helo ayaa u baahanaya asigna waxaa leeyahay title iyo waxaa u baahanaya markaasi content dabcan hadduu idin dhibaayo qaabkan of course dhamaystiran hadduu idin dhibaa ii sheega video waxay markaasi aan iskaga block garay ama iskaga xiro intaa markaan sameeyo waxaa u baahanaya markaas updateka inaan sameeyo markaasi waxaa leeyahay markaasi update history await ayaa leeyahay mar walbo waa inaad sameysaa await iyo sn ka haddaa sheegtid waxaa u baahan tahay await hadhaadid ayaa u baahan tahay try catch ma isticmaali karna ku dhex dari karnaa si errorska aan u qabana markaa markaas history not find id hadda id ahaan u raadinaynaa markaasi find id kadib waxaa leeyahay markaasi an update okay kadib intaas sameynaa markaasi inta waxaan ku sheegaynaa markaasi waxa aan raadinayno ay tahay oo id ayaan raadinaynaa kadibna maxaan rabnaa markaasi oo anaga aan macnaha post garayno waa titlekii
iyo waxaan u baahanaa markaasi iyo contentiga labadaas ay shay ay u baahanaa intaa markaas my condition ayaa meeshaan ku sheegaya markaasi waxaa leeyahay if markaasi update history oo success noqdo waxaa u baahnaa markaasi inaan jawaab soo celiyo u baahnahay waxaa leeyahay markaasi response.json kadibna message ay sheegaya oo history updated successfully iyo history la update gareeya soo noqonaya haddii markaas taa ay dhicisna maxaa dhacaya markaasi else ayaa dhacaysa meeshaas elseaas wuxuu noqonaa markaasi response.json kadibna wuxuu noqonaa markaas waxaa leeyahay markaasi message waxaa leeyahay posty not updated ayaa leenahay okay kadibna else iska xirno intaa markaas waxaan u baahanahay hal shay oo baahanahay oo ah export inaan sameeyo markaasi default handlerkaas inaan sameeyo ayaan u baahanahay save baa leeyahay okay aan tijaabiyo markaasi waxaa tagaa postmankeena tagaa okay iyo copy kan tab kale ku daraa kan waa iska get hadda markaan dhaho waxay soo baxay getka caadiga labada shay ah waxaan u baahanaa markaasi midkan tuuga waxaan qoraalkan aan saxaa rabaa tuugan aan qaadanaa slash waxaa leeyahay markaasi slash markaan dhaho waxaa sheegaya markaasi idgaas ayaa meesha ku caddaynaya inta waxaa ka dhigaa markaasi put ayaa leeyahay update aan sameynayo bodyga tagaa inta waxaa leeyahay row textigan waxaan ku bedelaa markaasi json okay title waxaa u bixinaa markaasi history 2 markan waa saxay inta waxaa u bixinaa markaasi content history 2 was updated okay hadda markaa fiirisid content wax kale noogu qoran history 2 na qaab kale ay qoran tahay intaa markaas maxaa dhacayo send aan leeyahay tii hore ayaa markaasi okay cilad ayaa noo soo baxday meesha cilada noo soo baxdayna wax kaleeto maahan waan ka sheekinayay meeshan aan dhahnay marka programkaasi waxaan filaa inay tahay query inay tahay waan filaa halkan markaas send aan leeyahay waxaan sugaynaa success no success muusan noqonin okay history updated kadib historygeeda soo celiyey why okay intaan ku noqona mar kaleeto send aan dhahna get ayaan sameynaynaa dabcan waa la update gareeya sax aragtaan ba 2 wuu saxan yahay 1 wuu saxan yahay laakiin kan wuxuu soo celiyey datadii hore ayuu soo celiyey maaha datadii hore uu soo celiyo datada cusub inuu soo celiyo u baahannahay okay si fiican okay datadii la update gareeyey oo hore originalka markaasi oo noo soo tufay laakiin haddii get mar labaad aan sameeyo oo aan get aan dhaho meeshaan عليه مركز send طبعا أنا صباحي يصير 2 إذا إحنا صباحي يصير 2 بس update أنا صباحي مركز كيورو كتبنا update كمركز وإحنا نقولنا أنت وكل أيوة نقولنا مركز إن هتعرف فينا مركزي and سأسمع نسينا حدا المركز function كمركز مني database كان شيء كده بحدا مركز ID هدو ماشان وقوة هاي slack أم وحكله أم هدو ماشان وحضن ID جالس توحكله قوة هاي أنت وحاسب بدلسة okay كوريا كليسا waxaan ku qaldayaa markaas barnaamijka dhahid waa marka la isticmaalayo Node.js Express marka la isticmaalayo badan aad loo isticmaalayo qaybta okay ka soo socono bodyga soo basreeyna fiiyo waa title iyo content is ayta bodygan waa title iyo content-igi inta waxaan noogu sheegnay markaasi laba isku qabanay waa find by id wuxuu ku sheegay markaasi content-igaas oo database ku kasoo raadina id ahaan oo ku raadina aan maxaa markaas update ku sameeyna markana update ayuu sameynaa okay haddii markaas la update gareeyay waxaa soo bixisa markaas message-ka noo soo bandhig haddii kale markaas error-kaas soo bandhig qaybta inta ay ku joojinaa markaasi iska sahlan tahay qaybta ugu dambeysa delete ayaan sameyn doonaa insha Allah